sheekadii la magac baxday qisadii katiinka qaybteedii shanaad haddii aadan soo daawan afartii qaybood oo hore fadlan soo daawo markaas kadibna qaybtan u imow. ciidankii risqi iyo qaanim iyo faayiq waxa ay arkeen doonyo waaweyn oo shiracyo leh soona socda way fiiriyeen ayaga oo ka eegaya geedka hoostiisa. risqi baa hadloo yidhi fiiriya waa laba doonyood oo ay leeyihiin qaraasinadu oo nagu soo dhowaaday. qaanim ayaa amar ku bixiyey isaga oo leh dhammaantiin dib u gurasho sameeya isuna diyaariya dhacdo weyn oo xoog badan. ciidankii dib ayay u gurteen ayaga oo raba qaraasinadu in aysan arag si ay ugu kadiyaan markii ay soo degtaan. waxa isa soo dhigay shantii nin ee horay u afduubtay Shamaa iyo Sarxaan ayaga oo wata jeebayaashii ay ku jabin jireen dadka ay xeebaha dhinacyadooda ka qafaashaan. durba shantii nin ee qaraasinada ahaa waxa ay hoos yimaadeen geedkii ay horay wax uga afduuban jireen ayaga u soo dheereeyay dhinaciisa. ayaga oo ku ordayay ayaa waxaa dhinacyada ka soo orshay ciidamadii hilaaliyiinta sidii ayaana lagu qabtay nimankaas oo gacanta loogu dhigay. dhinaca kale gabadhii Sarxaan adoonka u ahaan jiray way walwalsan tahay way murugaysan tahay waxa ay ku gaaf wareegaysaa guriga dhinacyadiisa. waxa ay soo istaagtay albaabka xeradii uu ku jiri jiray waxa dhagaheeda ku soo dhacaya cidii digaaga iyo ariga. waxaad moodaa in ay ku jirto xaaladii ugu xumayd iyo xiisihii ugu darnaa abid. gudaha ayay xeradii u soo gashay iyada oo jaranjaradii uu fuuli jiray gacmaha ku qabatay malaha waxay ka ursanaysaa Sarxaan udugiisii. dhanka kale ciidamadii hilaaliyiinta ee qaanim iyo risqi hogaaminayeen ayaga oo hoos jooga geedkii Sarxaan ayaa waxaa dhinaca badda ka soo galay doon kale oo ay dhowranayeen waxaana ka soo degtay doonta Sarxaan iyo Shamaa. aad bay ugu hambaliyeeyeen nabadda ay ku yimaadeen way bogaadiyeen farxad aan la soo koobi karinna way muujiyeen. qaanim ayaa ku yiri iska nasta iminka biri ayaynu aadaynaa dhulkeenii Najdi. Sarxaan baa ugu jawaabay oo yiri raaxo ma jirto mar haddii aanan joogin dhulkeenii ayada ah meel lagu raaxaysto oo la dago hal ilbiriqsiyaanu ka dib dhicin Najdi. markii uu hadalkii soo gabagabeeyay ayay bilaabeen safarkii ay ku imaanayeen dhulka Najdi. waxa ay yimaadeen Najdi waxaa loo soo dhaweeyay si aad u la yaab badan durbaano iyo qasiidooyin farxado kala duwan ayaa dadkii wadaageen. dumarkiina mashxaradoodii waxaa laga maqlayay intaas oo kiiloomitir oo isku weer ah. Shamaa iyo Sarxaan way aqal galeen way fadhiyaan waa waqti habeen ah midba midka kale ayuu fiirinayaa gacantiisii ayaa uu ka saaray dhabankeeda iyada oo dhoolla cadaynaysa. waxa uu ku yiri waxaad moodaa in aan ku arkayo markii ugu horeysay Shamaayay. waxay ugu jawaabtay ma adiga aan kulano maalin walba iskuna aragno maxkamadda ayada oo markaas gacantiisa oo si naxariis leh u taabanaysa. waxay u raacisay jasiiradda dhexdeeda meeshan ku ahayn adoomada. aad bay u qosleen goortii ay Shamaa xasuusisay. waxa uu ku yiri markii aan ka soo tagnay dhulkii aan ka soo kaxeeyay ma awoodi karin in aan ku arko. say tiri sabab soo yiri maxaa yeelay Najdi ayaa inoo dhaxaysay ayadaan ku dhaartay in aan ku faraxno korkeeda hadda oo kale. midda kale soo ma xasuusatid ballantii aan aabaha u qaaday ee ahayd in aanan ku arag ilaa Najdi oo aan ka dhigo arooskaaga markaan ku arkayo. say tiri markii aad aragtay kadibna see i aragtay. asaga oo dhoola cadaynaya ayuu yiri waxaan ku helay adiga oo ka qurux badan xaqiiqada riyada iyo quruxda laftirkeedaba. inama kala geyn doonaan bad iyo bariba waxaanu ahaanaynaa kuwo isla jira jacayl iyo wanaag. intaa kadibna midka kale ayuu habsiiyey. muddo haddii la joogay waxaa foolatay Shamaa waxaaba uu maqlayaa dhawaaqeedii asaga oo taagan dariiqa khaymadda meesha uu ka arrimiyo. hadba dhinaca qaylada ayuu u janjeersanayaa asagoo sugila waxa ay dhalayso. ayaa waxa u timid haweeney waxay ugu bishaaraysay hadalkan waxaa dhashay curadkaaga boqorkaygiiyow. durba waxa uu u sheegay magacii uu baxshay waxa uu yiri waxaan ku magacaabaynaa Xasan. waxaad moodaa in uu u shidan yahay muusigii farxadda uu qoslayaa waa u dhoolla cadaynayaa. muddo ayaa ka soo wareegtay misana uur kale ayay qaaday Shamaa way foolanaysaa. talow iminkana maxay dhali doontaa. waxaa la wada maqlay dhawaaqii ilmaha yar. haweenaydii hore ugu bishaaraysay wiilkii hore ayaa u timid uguna bishaaraysay waxaa ku dhalatay gabadh waxaana uu baxshay Jaaziya. dhammaad ugu dambayn sheekadu waxa ay socoto wiilka Xasan ibn Sarxaan ugu dambayn asaga hogaamiyay qabiilkii ilaa laga guuray meeshii ay beeshu deganayd una guureen dhulka Tunis ee Liibiya wadanka jaarka la ah halkaas oo ay dagaal badan ku galeen. ugu dambayn Xasan uu noqday boqorkii Tunis kuna geeriyooday halkaas. daawada haddii aad la socotay qaybihii sheekadani ay ka koobnayd fadlan wixii ra'yigaaga ah oo kaaga aadan qisadan noogu reeb barta hoose ee faallooyinka. aad baad u mahadsan tahay. muuqaalkan waxa ay soo diyaariyay idin la soo jeedinayay anigoo ah Cabdullaahi Cabdikariin Khaliif. dhinaca Facebook haddaadna nagala socotid share iyo like inoogu qabo dhinaca YouTube kana subscribe iyo like dhiirigelinta aad baad